dhawaada mar kale daawadayaal wararkana waxaan ku bilaabaynaa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn caalamka ayaa hakisay xamuulkii ay geyn jirtay dekada Berbera kadib hakintan oo ku saadaysa iyada oo laga cabsi qabo digniin adag oo xariiq cas ah kana timid dalka Yemen. shirkadda weyn ee maraakiibta xamuulka qaada ee Maersk ayaa waxa ay hakisay dalabaadyadii cusba ee dekada magaalada Berbera taasi oo lagu tilmaamay in ay saameyn ku yeelatay raritaanka badeecadaha ay ku jiraan kuwa u socda Ethiopia. Maersk oo ah shirkad caalami ah oo hormuud u ah gaadiidka konteenarada ayaa ku dhawaaqday hakintan ku meel gaarka ah ee dalabaadka cusub ee xamuulka ee loo dirayo amaba laga soo qaadayo dekada Berbera taasi oo ah marin muhiim u ah gaadiidka badeecadaha uga gudba dalalka dariska la ah Soomaaliya oo Ethiopia ay kamid tahay. waray shirkadu ay soo saartay 20kii bishan Abriil ayaa waxay ku sheegtay in hakintan si degdeg ah ay u dhaqan gashay isla markaasina ay la xiriirto isbedelo ku yimid jadwalka safarada. Maersk waxay qaratay in dekada Berbera loo adeegsan jiray xamuulka gudaha iyo isku xirka suuqyada dariska la ah Soomaaliya gaar ahaan Ethiopia ayaa u aragtay dekada Berbera mid ay sii kordhinaysay muhiimadeeda gaarka ah gaar ahaan dhinacyada dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha. wafdi heer sare ah oo ka socday Ethiopia ayaa booqday dekada iyo aaga dhaqaalaha xorta ah ee Berbera bishii December ee sanadkii hore 2025 taasi oo muujinaysa sida ay ku dooday warbaahinta gudaha Ethiopia xiisaha Addis Ababa ee ku aadan ballaarinta isku dheelitirka ganacsiga iyo maalgashiga ee marinka badeedka muhiimka ah ee badda cas. mas'uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in booqashadu ay qayb ka ahayd dadaalo ballaaran oo lagu xoojinayo xiriirka dhaqaale iyo isku xirka gobolka waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay xubno sare oo Somaliland kuwaasi oo carabaabay in isbedelada la sameeyay lagu horumarinayo waxqabadka dekada nidaamka kastamyada iyo fududeynta ganacsiga. waxaan fahamsanahay in aad ku tiirsanaydeen adeegyada Berbera si aad u gaarsiisaan xamuulka gudaha iyo suuqyada dariska la ah sida Ethiopia ayaa Maersk ku tiray war ay soo saartay. si kastaba ha ahaatee shirkadu waxay cadaysay in xamuulkii horey ugu sii jiray dekada Berbera uu gaari doono meelihii loogu talagalay sida qorshuhu ahaa inkasta oo hakintan ku meel gaarka ah lagu guda jiro. inta lagu guda jiro hakintan waxaan hubin doonaa in dhammaan xamuulka hadda socda la gaarsiiyo goobihii loogu talagalay ayaa shirkadu ay ku dartay. Maersk waxay sidoo kale xaqiijisay in adeegyadeeda dekadaha kale sida Djibouti, Muqdisho iyo Mombasa oo Kenya ay sii shaqayn doonaan isla markaasina ay taageerayaan isku xirka saadka gobolka kuwa dekadaha halkaasi adeegyadooda la geeyay ah taasi oo ay tilmaantay in ay tahay silsiladaha sahayda ee la xiriira Ethiopia. shirkadu waxa ay kula talisay macaamiisheeda u baahan isku xirka Berbera in ay la xiriiraan wakiilada shirkadda si ay u helaan fursado kale oo gaadiid dhulka ah. Maersk weli ma aysan bixinin sababta rasmiga ah oo ka dambaysa go'aankan balse tallaabadani waxay imaanaysaa maalmo yar kadib markii maamulka Xuutiyiinta ee dalka Yemen uu ka digay waxa uu ku tilmaamay kordhinta xiriirka Israa'iil ee Somaliland oo ay ku jirto magacaabista safiirka Israa'iil u fadhin doona Hargeysa. maamulka Xuutiyiinta ee Sanca ayaa sheegay in arrimahaasi ay qatar ku yihiin madax banaanida Soomaaliya iyo xasiloonida marinbadeedka badda cas iyada oo sidoo kalena ku tilmaantay joogitaanka Israa'iil ee Somaliland xariiq cas isla markaasina ka digtay saameyn amni oo ku fidi karta geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed. wixii ka soo kordha wararkaasi waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena dambe welina Somaliland kama aysan bixin jawaab. markaane xukuumadda Soomaaliya ayaa jawaab culus siisay siyaasiyiinta mucaaradka kuwaasi oo isku ballansaday 15 May maalin ay ku ag tahay xilhaynta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay doodaha siyaasadeed ee ka taagan muddaxileedka dowladda iyo hadallada adag ee mucaaradku ay ku weerarayaan xukuumadda jirta ayaa isaga oo u jawaabaya waxa uu sheegay in muddaxileedka dowladda uu yahay muddo 5 sano ah. Xamse oo su'aal galiyay dooda mucaaradka ee ku dhaqanka dastuurkii 2012 ayaa hoosta ka xariiqay inaysan jirinin wax ay ku kala duwan yihiin sida uu ku dooday muddaxileynta madaxweynaha isaga waa dastuurkii hore iyo kan hadda la ansixiyay ee la dhameystiray. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in haddii dib loogu noqdo dastuurkii 2012 aysan jirin sabab loo xusi karo in muddaxileedka ku eg yahay 15 May walow uu xusay in qodobkaasi baarlamaankii jiray xilligaasi bedel uu ku sameeyay. 15 May buu ku eg yahay madaxweynuhu dhageyso maqal rag la arkayo si fiican ugu fasaxaynayo heer sanad. marka
waxaa isdiidaya dastuurkii 12 baa dastuura iyo waqtiguu dhammaaday ismaba laba dastuurka 12 ay ansixiyeen ergadii 800 iyo something ahayd waxa ay noogu qornaa ay ku ansixiyeen termku inuu 5 sano yahay marka haddii dastuurka 12 la ansixiyey lagu noqonayo maxaa keenay 15 May bay baash ku egtahay ilaan dastuurka saas ku qornay baarlamaankii baa bedelay markii dambe qodobkaas marka horta taas waa taasoo isma leh waa in la is waafajiyaa dastuurkii 12 baa dastuura waqtigiina waa dhammaaday isma qabanayso haddii kan la qaato iminka la dhammaystiray dastuur cusub ma aha waa dastuur la dhammaystiray sidii dastuurku farayay ayaa loo dhammaystiray haddii ka la dhammaystiray sida wasiirada loo dareerinaya iminka haddii kaas la qaatana fatradu waa 5 sano haddii kii 12 la aadana fatradu waa 5 sano marka meel looga baxo 5 sano ma jirto dhinaca kale siyaasiyiinta mucaaradka ah oo qabtay kulamo iyo shirar kala duwan ayaa sheegay in dalku uu ku jiro marxalad ay ku tilmaameen kala guur adag iyagoo ku dooday in muddaxileedka baarlamaanku uu dhammaaday 14 bishan Abriil 2026 isla markaasina uu ku xigo kan madaxweynaha oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin iyada oo 15 May uu ku eg yahay sida ay sheegeen mucaaradka ayaa sidoo kale waxa ay ka digeen in dalku uu wajaho xaalada ay ku tilmaameen mid mugdi ah waxaana ay ku baaqeen in la sameeyo badbaado qaran waxa ay ku tilmaameen si looga gudbo xaalada taagan halka ay ugu baaqeen shacabka in ay door firfircoon ay ka qaataan dadaalada lagu xalinayo khilaafaadka siyaasadeed ee taagan markana wararka Soomaaliya Somaliland iyo Israel haddaan dib ugu laabano dawladda Iran ayaa codkeeda waxa ay ku biirisay cambaareynta safiirka Israel u soo magacawday Somaliland Iran waxa ay si kulul u cambaareysay talaabada Israel safiir ay ugu magacawday Somaliland iyadoo oo ku tilmaantay mid xadgudub ku ah madax banaanida Soomaaliya iyo sharciga caalamiga ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran Ismaaciil Bakhay ayaa waxa uu sheegay in go'aanka Israel uu yahay faragelin cad oo lagu weeqayo xasiloonida gobolka isla markaasina aan la aqbali karnin Bakhay waxa uu ugu baaqay beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay ururka iskaashiga islaamka OIC midowga Afrika iyo dalalka kale ee xubnaha ka ah iyo guud ahaan wadamada kale ee caalamka in ay si wada jir ah uga hortagaan waxa uu ku tilmaamay faragelin iyo ficilada qalqalgelinaya ee Israel ay ka wado gobolka Geeska Afrika hadalkan ka soo baxay Iran ayaa waxa uu imaanaya xilli ay sii kordhayaan ficilada iyo dhaleecaynta ka dhanka talaabada Israel ee la xiriirta Somaliland taasi oo ay dalal iyo ururo kala duwan si adag ay uga hadleen ugu dambeyntiina Nisa ayaa faahfaahin ka bixisay howlgallo lagu dilay in ka badan 30 al-shabaab ah oo ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe ciidanka hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee Nisa ayaa sheegay in howlgallo qorshaysan oo ka dhacay dhowr deegaan oo gobolka Shabeellada Dhexe lagu dilay 30 maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab iyadoo gacan laga helayo saaxiibada caalamiga ah howlgalka koobaad ayaa waxaa la sheegay in lagu bartilmaamay sida guri ay ku sugnaayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab kaasi oo ku yaala deegaanka Gulane kaasi waxaa la tilmaamay in howlgalka inta uu socday lagu dilay 15 xubnood laguna burburiyay xaruntii ay ku sameynayeen oo adeegitaanka ama u adeegsanayeen sida hadalka loo dhigay abaabulka maleeshiyaadka iyo qorsheynta falal amni darro sidoo kale howlgalle isxigxigay ayaa waxaa lagu qaaday maleeshiyaad ku dhumaalaysanayay isla deegaanka waxaana la sheegay in lagu dilay in ka badan 18 xubnood halka lagu gubay gaari cabdibila ah oo ay u adeegsanayeen dhaqdhaqaaqyada iyo daabulitaanka ciidamadooda taasi oo si weyn u weeqday sida hadalka Nisa ay u sheegtay in abaabulkii halkaasi ka wadeen ay kooxda Nisa waa hay'adda Nisa ay ka hortagtay kooxda al-shabaab howlgaladan ayaa yimid kadib markii sirdoonka Soomaaliya uu xaqiijiyay in ilaa iyo 9 xubnood lagu aruriyay deegaankaasi si loogu adeegsado falal ay ku tilmaantay kuwa lidi ku ah amniga waxaana xigay talaabooyin looga hortagayay iyadoo Nisa ay ugu baaqday shacabka in ay la wadaagaan wixii macluumaad ah ee la xiriira al-shabaab ama Daesh qodobkaas ayaa ugu dambeeyay